asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha dhammaan meel kastoo joogtaanba waa kaalintaada iyo hee kombyuutarka iyo tiyariga labadaba. ra-iisul wasaaraha waddankan dutchka mark ruut lagu magacaabo ama aynu naqaano rudri waa ninkii markii saddexaad doorashada ku guuleystay. waa nin runtii wax badan waddankiisa usoo qabtay, inkastoo lagu haysto wax la dhahayo plastin afares wax la dhahayo. plastinka ayaa waxaa ka dhacay xoogaa waqtigii intuusan hadda xilka dib ugu soo laaban ayaa dhaliilo scandala ka yimid oo dad muslimiin xuquuqdoodii caruurtii child benefit ama kinibaslak la doodsiiyey wax saas oo kale ah banaanbaxyo sameeyeen sida tviyada iyo waxyaalahaasi soo bandhigeen. ma waxaan been ka sheegayo maaha, aniga waa prime minister keni. markaa saas leeyahay waddankan ku nool lahay uu prime minister u yahay, anagu noo yahay maadaama dhalashada waddanka haysana. sidaa daraaddeed marka waxaa muhiim ah qofki inuu iska ilaaliyo inuu hadal been uu ummadda ka sheego. ilaahina wuxuuna yiri cadaaladda sameeya gaal iyo muslimba. marka anaga soomaali markaynu nahay waxaynu isku daynaa inaynu ka hadalno dadka inaynu ka been abuurno. arrintaas waa inaad joojisaan soomaaliya. qofa waxba kaa sheegin cadaawad u qabto ama reer hebel aad darteed ku maagayso joojiya. qofka waxawaaye waxaad og tahay sheeg oo saxda ilaahay kugu ogyahay, waana waxa ilaahay aakhiro miisaankaaga dambe lagugu saari doono. Premier Ruut wuxuu booqday Woensdag in Morocco. Premier Mark Rutte is Woensdag in Morocco. waddanka Morocco la yiraahdo oo Morocco xagee ku taalla hadda idin weydiiyo walaalahay dhegeysan doono waxa laga yaabaa inay dhahaan ma ogi East Africa ku taalla, East Africa, West Africa ku taalla. Morocco waa wadamada ka mid ah wadamada Afrikaanka ee dowladda Carabiga ku jira. waa wadamada carabta ee Afrika ku yaala. wuxuu ku yaalaa North Africa maanta xasuusno insha Allah. haysal tema wuxuu kala hadli doonaa als migrasiga waxaa migrancy dadka isdhexgalootig ma la dhaha immigrationka iyo khuruna energy dhulka la cagaareynayo. cagaareynta waddanka caan uu ku yahay, laakiin energy khurun wax la dhahayo koronto jaban inay helaan rajeynayaan. enerjiga la cagaareeyo waa calaa kulli xaal waa waxa uu 23 fashion uu bixiyey MBC ninka sacuudiga maanta maamula fikirka 2030 inuu jaziira carabiya dhan cagaar ka dhigo. marka arrintaas socotay la cagaareeya ma fahanteen. annagana cagaarkaan la dagaalamaynayo geedihan gurayna waa cajiib way. mar og blank right is what need board besproken. waxyaalaha ku qarsoon laakiin lagama hadlo. marka Morocco waxay ciyaaraysaa la yiri rol wadamada Spain, Portugiiska and Morocco spiel head waxay ciyaaraysaa spiel hard and slimmer. ciyaar adaga ciyaaraysaa oo siyaasadeed iyo xarfaannimo. halkaasaa lagu koobay ciwaanka. waxaa kasoo qaaday folks karantiga oo taqaanaa jariirada ugu caansan ee waddankeena. ruut waxaa kaloo uu la kulmay ruut Simon Verkin mid Morocco in Frisvinde inuu la sameeyo. wuxuu la kulmay boqorka waddankaasaa la socotaba waddanka uu la kulmay boqor maxamedka labaad. marka haddaynu usoo noqono marka ujeedada ugu weyn ee ruut u taga meesha maxay tahay. baryaha waxaa socday waddanka Netherland waxay doonaysaa inay wadamada North Africa la dhaho ama Afrikanisland azulso kristroq la celiyo, khaasatan waddanka Morocco, Tunis kulli qorshe dheeraa ku jira. enerjiga waa idiin soo sheeg. waxaa la rabaa gaas dabiici laga soo qaado waddanka Nigeria maahne Algeria oo heshiisyo hore lala galay. pipeline la rabaa in Spain lasoo mariyo. muddo conflict jiray Morocco iyo Algeria conflicta ka jira waa la socotaan. waxay isku hayaan waxa ugu muhiimsan waxa waaye Morocco waxay xiriir la leedahay Israel. Algeriana waa wadamada carabta ku adag kasoo horjeeda Israel oo qadiyadda Falastiin difaacda. meeshaas waa meesha la isku hayo. waa heshiisyadu
imaara dulaasho way ya abraham code wax lagu magacaabo idinka hoos bixin waxaa la rabaa walaaladii siyaasadda caalamka inaad la socotaan oo idinku mashquulin xaafadda deganeed keliya reer hebela guriga naga ersaday iyo reer kale waa sax dulmi badan baa ka jira waddankeena dulmigani waaba meel walba miinooyina ka wada qarxay lascanood kismaayo geedo hiiraan dhammaanba waxa waaye meel la taabta ma lah ilaahay waxaan ugu duceynaynaa maalmahan fadligan ku jirno barakaysan in dhulkeeni qaboojiyo ya laakiin siyaasadda caalamkaad ku nooshahay indhaha inaad ku hayso waa muhiim waaye qof akhri waa inaad tahay waa inaad la socoto netherland oo doonaysa inay north african island ku celisa north african horta yay yihiin aan ku tus marka algeria ama alkhraya dhahan iyaga waddanka algeria dabcan wadamada saliidda soo saar dhaqaalaha leh qaxootigiisay rabaan wadamadan hadduu yimaado inay dib u celiyaan waddanka spain iyo dhulkaan ay aada ugu badan yihin iyo bortugiiska iyo faransiiskana way joogaan egypt ama egypt waxaad u taqaano ama misr ya isagana libya waaba wax meel loo celiyay wax maba jirtee waddankaa la burburiyey laba ra-iisul wasaaraha kala fadhiya laba madax waxa u horeeyay burburiye waa waddanka faransiiska isaga madaxweynahoodii heshiis la ahay isagaana diyaaradiisii miraajka heshiis la-aan galay hawada waddanka libiya intaanan un-ta usan ansixinin in la weeraray libiya marka dowladdii iyagaa burburiyey iyagaa afka ciidda u daray iyagaana shacabkoodii hadda waxay leeyihin waxaan rajeynaynaa mustaqbalka inaan celino waa cajiib morocco xiiso badan baa idinkaga hayaa dad la celiyey oo waraysiye la qaaday ayaan idiin soo gudbin doonaa oo aan codkeyga ahayn oo wariyo wareysanayo hollandees oo dadkii la wareysanayo ujeedadan ka leeya waxaa waaye dadkeena soomaaliyeed inay ku baraarugaan oo cibro ka qaataan waxaan rabaa haddaad dad soomaaliyeed oo jarmalka soo galaa jira oo aada u soo gala waddanka holland shuruucda waddanka waa inaa ilaalisaan simple warkoo kooban miidiya soo fadhiisanaysaa waxaa rabtaa sheegaysaa ilmahaagaa la wadaagaysaa sax maahay hooyo kastoo ilmaheeda miidiyaha la wadaagta oo soo bandhigta oo hadhow caruurtii wax ka sheegaysa la arko kilibyadaadaa laysi saarayaa kadibna adaa lagu dacweynaya miidiya waa waxa ugu horeeya ee baasboorka lagaaga qaadi karo haddaad og tahay haddaada ogeynba ninkii xabiib la oran jiray norway joogaa id xasuusin waxaa in dowladda norwejiyaanka kaga hor imaadaan oo la yeelo waxay ahayd miidiya aada u isticmaalahay miidiyaha dhibaatadii ay leedahay cibro ku qaata dad walaalo waxaa jira miidiyaha aada u isticmaala carruurta laga qaatay ma raba halkaa inaan ka sheega magacyadooda laakiin laqad kaana fii qasasihim cibra faactabiruu yaa ulul absaar miidiyaha waa dhinaca fiican inaad u isticmaasho ummadda wax wanaagsan usoo bandhigto oodan balaaye iyo xumaanaya ka shaqeyna waawaanada aan bixinayo ka mid tahay waddanka morocco barnaamij xiiso badan baa idii haya waraysiga soo socdo insha allah la wadaagi doonaa anigoona falanqeyn doonaa falandeesu ku baxaya waan daari doonaa anigana waa turjumi doonaa insha allah tunisia ra-isul wasaaraha hore uu iclaamiyey inuu tunisia tegi doono ya waraysi mar laga qaaday hadafka loo socdana waxay tahay qaxootiga kasoo faafaya wadamadaas horta waxaa la rabaa waqooyiga africa in meel iska saaraa waddanka holland hadafka u dambeysa meelahaasaa ila laga soo galaayo mediterraneanka intaas inay xiraanay rabaa inta kale xal u helaan marka dadka soomaaliyeed maxaa la gudboon dadka soomaaliyeed qaxootiga cusub ee wadamadan soo galay waxaa laga rabaa waddanka nidaamkiisa inaa ilaaliso waddanka markaa soo gasha intaa xerada ku jirta isku day luqada inaa barata waqtigaad haysataa habeenkiina ha soo jeedin maalintana ha jeefin talada labaadan ku siinaya waa talada saddexaad ku siinaya waxay tahay waxaad samaysaa habeenkii subaxii waqti hore soo kaca galaasyada afdhashkii waxaad ka qayb geli karta ka qeyl haddaadad haynina waxaad samaysaa kaamkaad joogto waxaad uga shaqaysaa volunteerkaas saacaddii 2 eray iyo bari iyo wax saasaa la siiyaa lacag baad ka helaysaa reerahaad kasoo dagtay dadkii aad xerada ku jiro inaad lacag ka samayso waxaan idin dhahay maaha oo iska dhahayo waa wax jiro way oon ogahay bal iska dhaaf waxaan ka saa hooyo soomaaliyeed oo waa yeel ah oo 60 jir ahayd inay ka shaqayn jirtay dadka kale jiifi jireen oo shahaadooyin la siiyey darabtan
sawiraan kasoo qaada shahaadada waa la wadaagaa marka waxaa waaye walaalaha dhammaan meel kastoo joogtaanba ee soo galay kow wadanka luuqadiisa xooga saar sharci hel ama helin luuqada meel kastoo tagtay ku anfacaysaa language is the key of life waay laba waxaad isku daydaa inaad aroortii kacdo habeenkii soo jeedka dhaafta jooji soo jeedka caafimaadkaada uma fiicna habeenkii waqti damba seexanaysa wixii duruuf kugu qasabta mooyaane salaadaha cibaadada usoo kacaysa waxaan ahayn iska ilaali saddex dad baa kasoo tagtay reer baa kasoo tagtay balwadahan aad bilaabaysaan joojiya qaadkaana habeenkana cunaysaan dhaafa oo suuq madow lagu soo qaadayo shiishadaana cabaysaan dhaafa oad kusoo jeedaysaan waxaa waaye xumaanta tan yar tan weynay ku geysaa marka waxay ku wadankan wadanka ugu daran waa ee daroogada freega kofishobyay leeyihiin waxaan rajeyn doonaa wadanka holan muxuu yahay xaaladihiisa waxaasoo dhan bal inaan la wadaago say dadka ugu baraarugaan oo ummaddeena u wacyigelin marka ilahi waxaan ka rajeyn inuu dadkeena caqliga usoo celiyo walaalaha dhammaan marka wixii fariin ah commenteska nagula wadaaga insha allah waraysiga xiisaha badanna dib baan kasoo dayn doonaa haddii allaha ugu daliira